Assalaamu calaykum. Halkani waa kanaalka daruuraha. Mararka qaar adigoo keligaa meel cidla ah maraya ama agtaada aysan dadka dhoweyn, ma maqashaa cod sida in lagu yeerayo oo lagu leeyahay war Caliyow. Haddii aad eegtana, ma weysaa ciddii kuu yeeraysay. Laakiin sidee ku dhici kartaa? Waaba maqlayay in la ii wacayay oo lay lahaa war Caliyow. Yaa acuudu billaahi min ashaytaani rajiim. Ma dhagahaygaa? Ma dareentaa guux iyo cod dheer sida in muusig aagaaga laga daaray oo mararka qaar dibadda ma u soo baxdaa si aad u eegto waxa dhawaaqaya ee misna ma weysaa. Haddaba ma jirta cid kuu yeeraysa iyo muusig agtaada laga tumayo toona ee waa guuxa dhagahaaga ama tinnitus. Dhawaaqaasi aad maqlaysid mararka qaar waxa uu noqdaa xanuun iska fudud, marar kalena waxa uu noqdaa cudur u baahan in laga daweeyo, laakiin inta badan waa tilmaam muujinaysa inuu cudur jiro. Cudurradaas oo kala duwan, sawaxanka iyo jabaqda dhagaha ama taniinul udhun, sida inaad maqasho wax yeeraya, jug la garaacayo, shanqarta cayayaan duulaya, gurxan agtaada ka baxaya, ama dhawaaqa irid la garaacayo oo kale, iyo wixii la mid ah. Waana xaalad ay dareemaan dad lagu qiyaasayo 15 ilaa 20%, kumana xirna da' gooni ah. Waana xaalad kumeel gaar ah oo aad ka soo kaban karto ama waqti dheer aad la noolaan karto. Guuxa dhegta waa cod aad ka maqli karto hal dheg ama 2 dhegood, shanqar yar ama shanqar weyn, ama si kale haddii loo dhigo, tinnitus waxay u kala baxdaa 2 qaybood. Midda koowaad waa subjective tinnitus oo ah guux ama dhawaaq dhegta ah oo uu qofku keligiis maqlayo, waana midda ugu badan caalamka, waxaana sababa dhibaato la soo daristay xuubka hoose ee dhegta, dhibaato dhanka maqalka ah, ama jug gaartay neerfaha iyo madaxa. Midda labaad ayaa iyaduna la yiraahdaa objective tinnitus, waa cod ama jabaq uu maqli karo dhakhtarka marka uu kugu sameynayo baaritaan dhegta ah, waxaana sababa dhibaato dhanka unugyada dhiigga ah ama lafta dhexe ee dhegta. Waxaa jira waxyaabo badan oo sababa guuxa dhegta, waxaana ka mid ah inuu qofku maqalka beelo marka uu gaboobo, gaar ahaan marka uu qofku gaaro 60 sano, inaad maqasho jug xooggan oo aysan dhagahaagu u dulqaadan karin, sida hubka noocyadiisa kala duwan, dhawaaqa mashiinada wax jarjara, iyo inaad cod dheer ku dhagaysato muusiga MP3ga iyo qalabka wax lagu dhagaysto sida iPod-ka iyo wixii la mid ah. Qashin kaa galay dhegta ama dhukay kugu raagay, dhaawacyada madaxa iyo qoorta, kuwaas oo saameyn kara neerfayaasha maqalka, xanuunada maskaxda sida isku buuqa iyo diiqada, xuubka dhagaha oo dilaaca, burada maskaxda oo waxyeelo u geysata neerfayaasha dhegta ee madaxa ku xiriirsan, kuwaasoo qaabilsan xakamaynta iyo maqalka. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha guuxa dhegta sababa dhiigkarka ama waxyaabaha keeni kara inuu kordho cadaadiska dhiigga sida isku buuqa iyo cabista khamriga. Waxaa jira daawooyin dhowr ah oo iyaguna sababi kara guuxa dhagaha, waxaana daawooyinkaasi ka mid ah kuwa xanuun baabi'iyaasha sida aspirinka, vancomycin iyo neomycin, iyo daawooyinka loo adeegsado malaariyada sida chloroquine. Daawooyinka loo qaato kansarka sida methotrexate iyo Trexol ayaa iyaguna ka mid ah daawooyinka reeba saameynta tinnitus. Haddii jirkaaga uu ku yaraado vitamin B-ga ama ay dhiig-yari kugu dhacdo, waxa iyana ay keenaysaa guuxa dhagaha. Waxaa iyana xusid mudan in daawooyinka la siiyo dadka uu stresska ku dhaco ay iyagana keenaan arrintan aan ka hadlayno ee ku saabsan buuqa iyo sawaxanka dhagaha. Haddaba maxay tahay cilladaha uu isku arko qofka qaba guuxa dhagaha ama taniinul udhun? Waxaa ka mid ah daal, stress, hurdo xumo, xasuus yari, hilmaan, niyad jab, walwal, iyo xanaaq ama caro. Dhanka kale, bulshada Soomaaliyeed ee aan ka dhalanay ayaa ah kuwo aan hadalka la gamban, waxaana ay qof walba ku tilmaamaan oo ay ku caayaan inta ama gaabiska uu leeyahay. Tusaale, haddii uu gacan la'yahay waa gacmay, haddii uu lug la'yahay waa lugay, haddii uu far la'yahayna waa faray, haddii uu jirkiisa ka muuqdo dhaawac gaaray waa daqarre, haddii uu ciribta la'yahayna waa ciribay, haddii uu il la'yahayna waa ilay, sidaas oo kale haddii uu san la'yahayna waa sanay, haddii uu daan ka jaban yahayna waa daamay. Waxaana hubaal ah markaa in haddii dhowr jeer uu dhawaq aan jirin kuu baxo oo xagga dhagahaaga ah oo ay Soomaalidu ku arkaan adigoo dhowr jeer leh yaa ii yeeray, ma adiga ii yeertay, waxaa dhici karta inay kuu bixiyaan magac aadan jeclaysan
ama kugu tilmaamaan inaad khaakhayirtay oo mar dhow aad maryaha dhigan doonto. hase yeeshee xaqiiqdu sidaa ma ahan. waxaana kugula talinayaa inaad booqato dhakhtarka dhegaha, sanka iyo cunaha ee loo yaqaan ENT. waxaad kale oo aad adiguba samayn kartaa xoogaa dadaal ah oo aad kaga hortegi karto guuxa iyo jabaqda dhegaha, sida adigoo iska nadiifinaya dhegaha si uusan dhukaygu maqalkaaga u xirin. waxaad kaloo samayn kartaa inaad gaabiso codadka dhaadheer ee aad muusiga ku dhegaysato si aysan u waxyeeleen xuubka dhegahaaga. sidoo kale iska yaree isticmaalka kafeega iyo kaniiniga aspiriinka. mar walbana la tasho dhaqaatiirta caafimaadka. waxaadna ogaataa in guuxa dheguhu ay mararka qaar iska baabi'i karaan adigoo aan wax daawo ah qaadan. mararka qaarna waxay calaamad u noqon karaan dhega beelis.